اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آياداسي waxay ku taalaa fi suurati al-Maa'ida waxayna soo degtay xajjat al-wadaac fi yawm Arafah. Ilaahay jalla wa ala waxa uu aayada leeyahay al-yawma maanta ayaan akmaltu lakum diinakum diintiinii ayaan idin dhammaystiray baa Ilaahay yidhi. aayadaasi diinta innaka la inoogu talagalay diinta Ilaahay baa la diintan innaka iska leh oo diintiinii maanta ayaan idin dhammaystirnay baa Ilaahay yidhi. diintiinii dadku waxyaabaha kale maanta ay sheegtaan laakiin diinta ma sheegtaan. ilaahayna waxa uu leeyahay ma diintaad idinku leedihiin ee diinta sheegta. dadku maanta dhulkay sheegtaan oo dhulka qaar waxay raadaan annakaale qaar waxay sheegtaan waxay ku tabceen adduunyada ay arkayaan bay sheegtaan. aqalkan aniga leh, gaadhigan aniga leh, ilmahan aniga leh, mehradan aniga leh, dhulkan annakaale may waxaasoo dhan ilaahay baa iska leh, adigu laakiin diintaad leedahay. وأتممت عليكم نعمتي نعمة ديدين ما أنت عندوش إنك كتام يلبا إلهي يدين نعمة ديدين نعمة الإسلام نعمة القرآن نعمة الأحكام دينت إلهي مركا وشاقنا يا نعمة بكو شاكتا إنيتها وهي دينتو النعمة adduunyaduna waa niqmad. diinta ilaahay nicmad ku sheegaa mar walba. dadka ilaahay dushooda uu nicmada uu dhigayna markuu ka waramayay ilaahay waxa uu lahaa adoomihii dushooda aan nicmada dhignay baa ilaahay lahaa in huwa illaa cabdun ancamna calayhi wajacalnaahu mathalan libani israa'iil. نبي الله عيسى عليه السلام إلهي مركو كورمي وحولها عيسى ابن مريم ما هين هدو أهانا وحو أهاون الضون بوها الضون اندوشي سنعمد دقنبوها با إلهي يدي وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ربني إسرائيل أنو قدقنا مثل أي كوديدان. نبي عيسى عليه السلام الضون بوها سدا أي نصاردو أي شيغيان ما هين addoon buu ahaa, addoon ilaahay buu ahaa, rasuul buu ahaa ilaahay soo diray tabaaraka wa tacaala. markaasaa ilaahay leeyahay addoon dushiisa nicmad aan dhignay buu ahaa. nicmadda markay culimmadu ay sharxeen waxay yidhaahdeen nicmadda uu ka warramayo ilaahay nicmadda adduunyada ma ahayna waa nicmadda diinta weeyaan. oo nebi ciise calayhi salaam adduunyada aqal uu galana ma lahayn, dhar xataa cawradiisa qariya oo aad u waaweyn oo fadfaadana ma sidan jirin baa la yidhi. in yaroo markaa cawradiisa uu ku asturoon buu nebi ciise lahaa calayhi salaam. dhar badan oo innaku maanta sida aan dharka aanu leenahay nebi ciise dhar tiro badanna ma lahayn. in yaroo cawradiisa uu ku asturo unbuu lahaa. adduunyadana nebi ciise aqal kuma lahayn baa layidhi. markii layidhi aqalkaadii mee wuxuu yidhi aqalkayga saqfigiisuna waa samada, gogashayduna wuxuu odhan jiray waa faraashkayguna waa dhulka. laba shay buu nebi ciise adduunka dusheeda ku lahaa bay culimmadu yidhaahdeen: barkin uu barkado iyo weel yaruu biyaha ku dhaansaduu ku cabbo ama uu ku maydho. labadaasuu nebi ciise wax adduunyaha uu ku lahaa. labadiina nebi ciise calayhi salaam wuu ka maarmay oo iska tuuray. waxauna kaga maarmay markuu arkay nin reer miya oo sacabkiisa biyaha ku cabbaya kuna maydhanaya. markuu arkay ayuu yidhi weelkani waa igu siyaado, deedna uu iska tuuray. haddana maalin kaluu arkay nin baadreer miya oo gacantiisa maaragtaanay ka dhigtay barkin oo barkaday. markuu arkay ayuu yidhi maaragtaanay barkintanna waa kugu siyaado, waa israafe. iyadiina uu iska tuuray. marka nicmadan ilaahay nebi ciise uu dushiisa dhigay ee qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen ma ahay nicmad adduunye ee nicmadda adduunyada nebi ciise sidaa culimmadu ay sheegeen buu ka ahaa. oo adduunka dusheeda aqal kuma lahayn, gogol maaragtaana uu ku seexdana ma lahayn, weelal uu cuntada ku cunana ma lahayn,
dhar uu ku babadishana ma lahayna in yaroo cawradiisa uu ku asturo uunbuu lahaa nebi ciise calayhi salaam laakiin nicmadan qur-aanka uu sheegaya bay culimmadu yidhaahdeen waa nicmada maaragtaane nicmatulhidaaya ilaahay baa hanuuniyey ilaahay baa islaamnimada ku deeqay shareecad la yidhaahda injiil baa ilaahay u soo dhiibay nebi rasuula ayaa ilaahay ka yeelay bal shanta nebi ee nebiyada ugu qiimaha badan leh ululcasmi la yidhaah qur-aanku sida gaarka uga warramay ayuu nebi ciise ka mid ahaa calayhi salaam qur-aankana meelo fara badan baa ilaahay ku sheegay nebiga magaciisa iyo taariikhdiisaba marka innakana ilaahay baa inagu leh alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiinnii ininka inii dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydiina maanta ayaan dushiinna ku taam yeelay waradiitu lakum lislaama diina diinta islaamkana baa ilaahay aniga raalli inigala noqdo inii doortay baa ilaahay nagu yidhi aayaddaasi markaa xajat alwadaac bay soo degtay markii nin yahuudiya ayaa cumar bnu khataab ku yidhi aayaddaa maanta dushiinna ku soo degtay haddii annaka noo soo degi lahayd maalintaasi ciid iyo farxad baan ka dhigan lahayn deedna cumar bnu khataab radiallaahu canhu markaa buu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam deedna markaa buu nebigu yidhi oo sobciidu ciiduladxa soo maahayn buu nebigu yidhi ciiduladxa labada ciidood ee muslimiintu ay leeyihiin inay farxaan loo jideeyey waa ciiduladxa iyo ciidulfitri ciidulfitrina waa tii ramadaanka ka dambaysay kowda shawaal ahayd ciiduladxana waa ciidda carafo weeyaan labadaa ciidood muslimiintu maxay ku farxaan baa layidhi waxay ku farxaan ciidda soonkana waxaa lagu farxaa soonkii aad maalinkiina aad soo dhammaystirtay qiyaamaleylkiiyo taraawiixdiina ilaahay uu ku dhammaystiray ayaa farxaddeeda lagu farxayoo loo ciidaabay culimmadu yidhaahdeen soo ciidda ciiduladxana waxaa loo ciidayaa shareecadda iyo diinta maalintii nebigeenna la noogu dhammaystiray xajat alwadaac ayaa layidhi diintii baa lainii dhammaystiray ku farxa baa layidhi markaa maalintaas marka diinta islaamka ilaahay baa ina siiyey iyadoo kaamila waa diin dhammaystiran weeyaan seeskeeguna waa arkaan alislaam iyo arkaan aliimaan saqfigeega halka ugu sarraysana waa xusnul akhlaaq bay dhahdeen culammadu diinta islaamku sees aqal walba marka la dhisaya sees buu leeyahay seeska diinta islaamku waa arkaan alislaamka iyo arkaan aliimaanka arkaan alislaam an tu'mina billaah أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل أركان الإسلام كي أركان الإيمان كنا واللحويان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى لحظة أركان الإيمان والتوحيد كشهادتين ماركتان اللقوة إضافين يا وضحوص إيمان يا مويان ركن كأساسي وحويان وإله جل وعلا إله إلا الرمي الآمن ويان نبى نبينا أيمد عليه الصلاة والسلام وحول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك لا أسأل عنه أحدا غيرك نبي الله دين تا إسلام كقول إقده أذيك دبضانا عدا بأنا ويدين مرقاب النبي كيد عليه الصلاة والسلام قل وحاتر هذا آمنت بالله ثم استقم وحاتر هذا إلهي وان رميي وان آمني لأن دين تا إسلام ككوت تصنوب النبي قل استقامك يالو دين تا إسلام كإلهي كوكو داقي آمن إلهي كما هو بأسمائه وصفاته جل وعلا سيدا إلهي جل وعلا وحق أيش إن لو آمن أو آمن أسماء إلهي آمن صفاتك إلهي أزلقنا آمن صفات الله عز وجل إلهي نمر والبكف أكفكر ذات ذي سي وعد كفكر تا خلقك إلهي كفكر لا تتفكروا في ذات الله بنبي قل تتفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا بنبي قل عليه الصلاة والسلام هكفكرنا بنبي قل يا إلهي جل وعلا لكن واحد كفكر إنسان بنبي قل إلهي مخلوقات كيس كفكر أزويدين إلهي جل وعلا سدو يجيهي طول يجيهي
taaha ka fikirina buu nabigu yiri yaa abuuray ayaa dhalay halkuu ka yimiday halkuu ka bilaamay may haysweydiin taa haddaad ka fikirtaan buu nabigu leeyahay waad halaagsamaysaan laakiin waxaad ka fikirtaan ilaahay makhluuqaadkiisa ka fikira makhluuqa ilaahay abuuray ee horteena socda eeg oo dadna ilaahay azza wa jalla awoodiisa ka dhaxarag marka ilaahay aamin kama huwa bi asmaa'ihi jalla wa ala wa sifaatihi sifaatkiisa ilaahay aamin dadna thumma istaqim ilaahay markaad aaminto ee shariicadiisa islaamkana aad aaminto ee shariicadiisa islaamkana aad ku dhaqanto waxa laga rabaa diinta islaamka inaad ku yeelatid maaragtaan istiqaamo ku yeelo ku sugnow markaa istiqaamada waa maxay waa toosnaan ku toosnow dadkuna diintan inay ku toosnaadaan waxay culimadu shardi uga dhigan laba shay qofku inuu iimaan dhaba leeyahay oo iimaankiisu kaamil yahay iyo inuu haysto maaragtaan mujtamac wanaagsan oo diin ku dhaqmaya inuu haysto qofku labadaas yaaba ayaa u dhib yareynaysa qofka diinta islaamka inuu ku sugnaado una ku dhaqmo iimaan yaqiin dhaba inaad u leedahay diinta islaamka بقدر الخوف hadba intaad ilaahay aad garata ee ilaahay ka baqaysid ayaad amarkiisa ku toosnaan hadba intaad macluumaad leedahay maaha macluumaadku waa gooni hadba inta iimaankaagu iyo yaqiintaadu ay dhisanto ayaad diintana maaragtaan aanad ku dhaqmi kari aanad ku toosnaan kari ogow haddii iimaankaagu daciif uu yahay mujtamacaad dhex joogtana uusan mujtamac diini ka muuqata uusan ahayn diintaada waxay noqonaysaa markaa gallinna dhinac baad jirtaa markaa gallinba dhinac baad aadi markaas zamanku hadduu xumaado oo ummaddu ay fasaado inaad ummad fasaaday oo xumaatay diin aad ku dhex danayn kartaa way adag tahay inaad diin aad ku dhaqmi kartaa ummad fasaada dhexdeeda way adag tahay mujtamac wanaagsan wuxuu kugu caawinayaa inaad diintaada wanaagsan aad ku dhaqantaa mujtamaca liita ee cibaadadiisu liidatee dhaqankiisu uu fogaadayna waa fududahay marka inaad adiguna mujtamaca aad raacdo ay ku qayiraan ninkii reer bani israa'iil ahaa ee 99 nafgooyey ee yidhi nin caalima oo mas'alo diiniya weydiiyo ii tilmaama nin raahiba ayaa loo tilmaamay raahibku waa ninka caabidka cibaadada badan leh laakiin aqoontiisa axkaamtu ay yar tahay weeyaan dadna markaas uu yimid oo wuxuu ku yidhi 99 naf baan gooyey toobad miyaan leehay markaa buu yidhi may adigu toobad ma lihid fakammala bihi 100 baa la yidhi boqolkiibu isagii kaga dhigo qortu ka gooyey isagii boqol buu kaga dhigay haddana ninkii uu fadhiisan waayey wuxuu yidhi ila raadsada buu ila raadiyo ila ii doondoono ii tilmaama nin caalima oo mas'alada aan weydiiyo toobadda markaas fadulla calaa caalimin nin caalima oo axkaamta yaqaana ayaa loo tilmaamay laana caabid kasta caalim ma ahin baa la yidhi laakiin caalim kasta caabid uu noqon karaa caalimkuna waa indhaha ummadda weeyaan ninka caalimka faqiiha diinta yaqaana waa indhihii ummaddu ay wax ku arkaysay culummadu caama hadday culummo weydo caamadaasi waa caamo indhabeeshay ogow waxa maanta nolosha muslimiintu ay la qalabaa gadinaysa waa caynka ay la kaca ku fayno laana caamadu culummada kuma xidhnay caamadu maanta siyaasiyiinta ku xidhan tahay siyaasiguna ma aha mid indhihiisu ay shaqaynayaan oo qalbigiisa iyo maskaxdiisu ay furan tahay maaha waa mid nolosha adduunyada uu yaqaanay nolosha aakhirada ka madow isagana lidaalika ninkaasi wuxuu raadsaday nin caalima laana culummadu waa indhihii ummadda weeyaan haddaad caalim aad cilaaqo la yeelato bal diintaada waxaad ku caabudaysaa si cad ilaahay ku caabudaysaa balladh naxariis diintaada waxay noqonaysaa diin waasicay noqon dadna markaas nin caalim aad loo tilmaamay caalimkii buu u yimiday mas'alad buu weydiiyay wuxuu ku yiri boqol naf baan dilay toobad miyaan leeyahay markaa buu ha toobad waad leedahay buu ku yiri toobad iyo adiga
cidina dhexmari kartaa ma jirto. toobadda waxay ka dhaxaysaa addoonka iyo rabbigii. 100 nafood haddaad dishay, toobadaada haddaad doonay in laga aqbalo oo ansaxdo, waxaa shuruudeeda ka mid ah waddankan aad ku nooshahay waa dhul xun weeyaan, oo macnaha dad xunxun baa ku nool. dadkaasi waa dad mar walba dhiigga daadinaya oo dagaal iyo rabshad iyo maaragtaan qaylo mar walba u taagan iyo dhibaato u taagane ka dhexbaxa buu ka yidhi mujtamacan. oo xaggee tegaysaa? mujtamac wanaagsan baad yaa kuu tilmaamaya. dhulkaasaa tegaysaa, dhul laydhaa meel heblaayo, dhulkaa dad wanaagsan baa ku nool oo ilaahay halkaa ku caabuda. dadkaasaad u tegi, deedna ilaahay la caabud buu ku yidhi dadkaas. deedna way sidii buu yeelay ninkii. waddankii uu dhiigga uu ku galo, dhagarta uu ku galay buu bedilay. waddankii uu u hijroonayay dadka wanaagsan ay ku noolaayeen isagoo aanan gaadhin ayaa ajashiisii dhexda ku qabato oo u dhintay. malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma isku qabatay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam. innakuna sida qofka bini'aadanka marka ruuxdu ay ka dhacdo aan jidhkiisa maaragtaane kafanka iyo nacashka iyo qabriga aan ula diyaargaroobayno, ayaa qofka maaragtaane ruuxdiisuna malaa'igta ayaa u imanaysa. hadduu ahluljanno yahayna malaa'ikatul raxma qaadaysa buu nebigu yidhi, hadduu ahlunaar yahayna malaa'ikatul cadaab baa qaadaysa. deedna labadii malag baa isku yimid oo qaar waxay leeyihiin waa ahlannaar, 100 naf buu qabaayo waa dhagarqabe, ninkani naar baan u qaadanaa, ruuxdiisa annakaa qaadaynaa. qoladii kale waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla, ilaahay buu u soo noqdo uu toobad keene maaragtaanay jannada iyo xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa. markaasaa malag suurad aadamiye leh ayaa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala. deedna markaasaa malagii la yidhi waxaad matiraysaa dhulka uu dembiga ku galay iyo dhulku u hijroonayay, qiyaas baa lagu yidhi. deedna markaasaa waxaa u batay dhulkuu u socday buu markaa ayuu u dhowaaday taaka intaa leeg baa la yidhi. wa fii riwaayatin riwaayad kale wuxuu nebigu yidhi ilaahay baa amar ku siiyey dhulkii, dhulkuu u socday ee dadka wanaagsan ay ku noolaayeen baa lala hadloo lagu yidhi addoonkaasi waa toobad keene u dhowow. deedna taaka intaa leeg buu u dhowaaday, taaka intaa leeg. sidaasee markaa malaa'igtii naxariistu ay ku qaadaan oo ahlujanno ku noqdaan la yidhi. waa sharcun liman kaana qablanaa bay culimmadu yidhaahdeen. ummadihii naga horreeyey toobadooda in la aqbalo waxaa loo shardinayay inay mujtamaca ay ku dhex jiraan ee liita, ee fasaadsan, ee dhiigga daadinaya, ee dagaalamaya inay dadku ka dhex baxaan oo mujtamac wanaagsan oo diin lo alla ka cabsile meeshay joogaan inay u hijroodaan ayaa maaragtaanay shareecadihii ummadaha hore ka mid ahayd. ama innaka shareecadeenna toobadda culimmadu markay ka hadleen waa kuwii lahaa toobaddu markay addoonkiiyo ilaahiisa ka dhaxayso waa 3 weeyaan. 3daa haddii lagaa helo toobadaadu way ansaxaysaa, haddii mid lagaa waayo toobadaadu ansixi mayso. ka koowaad waa kii culimmadu waxay yidhahdeen dembiga aad ku jirtay waa inaad ka dhex baxdaa. ta labaadna maaragtaanay dembiga aad samaynaysay waa inaad casimiya go'aan aad la timaadaa inaad mar labaad dibdamba dembiga aanad ugu noqon. ta saddexaadna waa inaad markaad xasuusato dembiga aad samayn jirtay waa inaad ka qoomamaysaa ood ka nadamootaa. 3daa haddii qofka taa'ibka laga helo toobadiisu way ansaxaysaa. 3daa ha shardi haddii mid uu ka maqan yahayna toobadaadii waa naaqis weli weeyaan. haddii bani aadan xaqiisii meesha uu ku jirana shardi afraad bay culimmadu sheegeen oo waxay yidhaahdeen waa inuu qofku maaragtaane xaqii bani aadanee lagu lahaa waa inuu qofka wixiisa iskaga celiye weeyaan, ama waa inuu cafis ka dalbaa. marka ummadihii naga horreeyey toobadooda waxaa looga dhigaya shuruud inay ka dhex baxaan mujtamacan xun ee dhiigga ay ku dhex daadiyeen, oo deedna mujtamac wanaagsan oo meel wanaagsan ku nool inay raadsadaan baa shardi looga dhigayay. marka waa min asbaabi istiqaama cala diin, qofku inuu diintiisa ku toosnaado oo ku sugnaado. labadaa bay culimmadu shardi uga dhigaan, inuu iimaankaagu kaamil yahay. hadduu iimaankaagu kaamil yahay oo yaqiintaadu ay dhab noqoto, mujtamac kastood ku dhex jirto ku saamayni maayo, laanna qalbigaaga ayaa ka buuxa iimaan iyo alla kacabsi baa ka buuxa. mujtamacu ku saamayni maayaana waxaad noqonaysaa muumin baad noqonaysaa, xaalad walba ilaahay aaminsan oo ilaahay amarkiisa ku toosan. ta labaadna inaad diintaada ku toosnaataay ood ku dhaqantaa waxa sabab u noqon kara waa inaad heshaa mujtamac wanaagsan oo diinta ku dhaqmaya oo diinta danaynaya. maanta mujtamacyadeenna ka waranaa ku dhex noolahay, iskadaa diinku dhaqankeedee inta tukatay inta aanan tukan
inta tukata ayaa yar oo inta aanan tukan bay naga badan maanta islaamaha xaafad walba waraysta tuulo walba waraysta magaalo walba qiyaasa dadka tukanaya inta aanan tukan baa ka badan inta tukanaysa iska daa diinku dhaqankeedii nabigeenu alayhi salatu wasalaam wakiilaha almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil qofku saaxiibka cidaad saaxiib ka dhigata diinta uu qaba unba diin adigana ku noqonaysa nin walba ninka la saaxiib iska eeg buu rasuulku yidhi bulshadu waa taas bulshadu wanaagsan haddaad hesho inaad wanaagsanaataa way suuragali haddii laakiin bulshada aad ku dhex nooshahay bulshad liidata oo cibaadadu ku yar tahay oo salaadu ku yar tahay oo fisqiga iyo fujuurka iyo macaasidu ku badan tahay haddaad ku dhex nooshahay waxaa suuragal inaad si wada noqoto adiguna marka dambe dadkii soo hijrooday waxaa ka mid ahaa Ubaydullah bin Jahsh nin la oran jiray Zaynab bint Jahsh waa nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii xaas ka mid ah walaalkeed iyo xaaskiisii uu qabayo la oran jiray Ramlata bint Abi Sufyan Ramlata bint ibnata Abi Sufyan aabaheed wuxuu ahaa magaalada Makka caaqilka magaalada Makka ama suldaanka magaalada Makka ayuu ahaa qoyska ugu laandheersan ee magaalada Makka ugu tiro badan ee ugu tayada fiican way ka dhalatay laakiin inay aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed inay ag joogto waxay ka fadishay inay iimaankeega iyo diinteeda ay la hijrooto oo kala hijrooto bilaad al-shirki ay u hijrooto wadan ay iimaankeega iyo diinteeda xor ay ugu haysato halka inaka dadkeenu maanta wadannada muslimiinta ay ka hijroonayaan ay uga hijroonayaan maaragtaan ciyaalka ayaan tacliin la raadsanaya ciyaalka ayaan caafimaad la raadsanaya ciyaalka ayaan nabad la raadsanaya ciyaalka ayaan bariis la raadsanaya may waxa diinta islaamka kuma ogolo wadan muslima inaad ilmahaaga ka qaadataa oo wadan gaala aad u doonataa maciishad diinta islaamka kuma ogolo diinta islaamku waxay ogoshahay wadannada maaragtaan gaalada ee iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya inaad kala soo hijrootaa ilmahaaga oo u soo hijrootaa meesha aad isleedahay iimaankaaga iyo diintaada way ku xafidmaysaa inaad timaaday diinta islaamku ku ogoshahay Ramlata bint Abi Sufyan ninkeedii Ubaydullah bin Jahsh bay ayay la hijrootay ilaa ay ardul Habasha markay yimaadeen malika Najaashi baa soo dhaweeyay saxaabada rasuulka afayeenkooga u hadlayay wuxuu ahaa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu dadna boqorkii wuxuu weydiiyay diinta islaamku maxay nabi Ciise ka qabtaa waxa uu ku dul akhriyay suuratu Maryam buu ku dul akhriyay ملك النجاشي للما كدادتي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وقد جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين في سورة المائدة إلهي جل وعلا واكا كغور رمي حالة بقر كان النجاشي كتمدي مركي جعفر بن أبي طالب ودوشي سكو أخريي سورة مريم سورة مريم waxay ka waramaysaa Ciisa ibn Maryam bay ka waramaysaa alayhi salaam hooyadii Maryam ay ka waramaysaa risaaladii nabi Ciisa loo dhiibay ka waramaysaa shariicadii nabi Ciisa loo dhiibay ka waramaysaa anbiya fara badan bay ka waramaysaa boqorka dushiisa markii suurada lagu akhriyayna lilmada ka daadato Ilaahay waa kay noogu sheegay oo quraanka ayay maqlayaan quraanka markay maqlaan indhahooga lilmadu ka hoobanaysaa baa Ilaahay yiri garashada ay garteen inuu yahay kalaamka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala inuu yahay markaasuu yidhi wallaahi kalaamkii nebi muuse afkiisa ka soo baxayay waa tawraad iyo kalaamkii nebiyullaahi ciisa ibn maryam afkiisa ka soo baxayo injiila iyo qur'aankaasi meel keliya ka soo wada baxeen waa waxyiga ilaahay buu yidhi dhulkaygu waa dhul nabada amni baad ku haysataan cadaalad baad ku helaysaan halka iska degay buu ku noolaado halka ilaahay ku caabuda marka aqal yar bay marka qoys intii u wada socotayna aqal yar baa la siiyay dhisteen oo cariish bay dhisteen gabadha Ramlata bint Abi Sufyan radiyallahu anha
habeenada kamida waxay ku manaamtay ninkeedii oo suuradiisii la bedilay markaasay ku tiri waryaa waxaan ku manaamay adoo suuradaadii la bedilay maxaa ka jira sidee wax u jiraan wuxuu yidhi waxaad aragtay waxba kama jiraan naga seexa buu ku yidhi haddana habeen labaad bay ku manaamtay ninkeedii oo suuradiisii la bedilay markaa bay ku tiri warrayadii baa igu soo noqotee see wax u jiraan ii sheeg haddana habeen saddexaad bay ku manaamtay markaa bay isagii baa runta sheegoo ku yidhi anu diintaydii waan bedilayoo diinta islaamka waan ka baxo diinta nasaaradan galay buu ku yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan darro weeyaan oo ayaan darane ninka islaamnimo la soo hijrooday ee maka kala soo hijrooday iimaan iyo islaamnimada inuu badbaadsado ee ardal xabasha markuu yimidana fitnoobay waa nas'al allah alcaafiya ilaahay baan ka magan galay inuu inankana nafadneeyo mar walba ku ducayso yaa muqallib alquluubi thabbit qalbii calaa diinik uu bedelay diintiisii uu ridoobay islaamnimadii buu ka baxay mar hadduu qofku diinta islaamka ilaahay siiyey uu ka baxo diin kaloo xaqoo adduunyada jirta ma jirta ogow laa yasmacu bi axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار بالنبي عليه الصلاة والسلام أحد أمة محمد أحد أمة إذا أما يهود هذا بالنبي أما النصراني من هذا إمام مغلو حدو إمام مغلو يسقو أنك أنني الرومين هدي أجتش كتي ما دنا كاس النار بكود عيب رسولك يدي إسلام دين إسلام مر هذا الدنيا تمدي وحي أدون كدين إسلام نمده هرتي جري ودين دين الإسلام كويدا مصحده وجو ساس أمريكا نكاس وكون نقدم مرتد والردوبي إسقى شارب الخمرية والردوبو مرتد ودين الإسلام كان نقدم أرض الحبش وكون انتهى ليدي رملة رضي الله عنها ده نقولي جدي بأمريكا يدو كل جد هبين مدوها لك كوسحة أقل دحدي waddanka ay timidana dadka ku nool afkooga garani mayso ninkii kaliya weelka ay ka dhiganaysay ee aabaheed iyo dadkeega iyo ubadkeega iyo qaraabadeedii ay ka soo raacdayna ee weelka u ahaana uu ka ridoobay intuu ridoobay isagoo shaarib al-khamriya ayuu ardul xabasha ku dhintay baa la yidhi kaligeed markaa aqal dhex seexataa waxaa taariikhda ku qoran habeenada kamida waxay ku manaamtay dayaxa oo ka soo dhacay samada oo dhabteeda ku soo dhacay salama radiyallahu anha oo jamaacada muhaajiriinta la socotay bay manaamkii u sheegtay oo tii manaamka baan arkay bali cabira markaas ay dumarkii la soo hijrooday waxay ku yiraahdeen wallahi garan mayna waxaan u maleynaynaa nin sayid suldaan xaaqil boqor waxa bini aadanku darajaad iyo mansab adduunka dusheeda ay ku sheeganayaan nin ka wada darajad sareeya inuu zawjku noqoni doono ayaan arintaasi u malaynayna dayaxa dhabtaada ku soo dhacay ayaan ku cabiraynaa bay ku yiraahdeen riyada wanaagsan ee ku manaamta ilaahay xaqiisa ka ahaatay buu nabigu yiri qofka aad isleedahay khayr ba ku tuhmaya ba loo sheegaa waa wuxuu kugu cabiro qofkaasi weeyaan riyada xun ee hawaawiga naxdinta badan lana taa lama sheega buu nabigu yiri shaydaan xaqiisa ka ahaato lama sheego waxna ka qaadi mayso laakiin riyo wanaagsan baad ku riyootay oo farxad leh waxaad jeceshahay wax ka farxiyay qofka aad isleedahay qofkaas uu ka khayr badan yahay diintana aqoon buu kaaga leeyahay oo ka aqoon fiican yahay waana ka iimaan fiican yahay qofkaas loo tagay manaamka baan arkay cabir baa la yiraahdaa wuxuu kugu cabiran oo noqdaa bay culimadu yiraahdeen riyada xun ee hawaawiga ee naxdinta leh adoo aqal kugu gubtay ama adoo gaadhi kula qallimay ama adoo diyaarad kula dhacday ama adoo aaska qayb galay ama adigoo buka ama adigoo fool xun riyooyinka xun lama sheego waayo shaydaan bay ka ahaatay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam habeenkii riyada noocaas ah naxdinta la markii lagu manaamay la soo ambabareel la kaco waxa sunna ah 3 jeer ba qandhoof yar dhinaca midig ba laga tufa xagga bidix ayaa naqasir laga afuufaad a'uudu bi kalimaati illaahi taamati min sharri ma khalaq dadna marka jiifka dhinacaad u jiiftana waa la bedelaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam
marka ayadu waxay ku manaamtay dayax dayaxii oo samada ka soo dhacay oo dhabteeda ku soo dhacay waa riyo wanaagsan markaabay u sheegtay ummu salama radiyallahu anha riyadii waxa loogu cabiray nin mansabkiisa iyo darajadiisa waxaan ku qiyaasnaa annagu aanan garanaynin ayaa zawj ku noqon doona baa lagu yidhi yaa u noqday markaa zawj ma taqaanaan nabigeena muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa jibriil baa u yimid oo ku yidhi rabbigaa baa ku soo salaamayey salaam baan rabbi kaaga wadaa waxaana lagu amrayaa inaad guursatid ramlata binta abi sufyaan gabadha ninkeedii ku weyday ardulxabasha ee ilaahay dartii ardulxabasha iyadoo muhaajirada u joogta ee keligeedna aqalka yare cariishka dhex seexanaysa gabadhaasaa zawjad inaad ku noqoto lagu amree halkaa ka guurso ka mehersan lagu yidhi deedna markaa buu nebigu soo diray markaa ergo boqorkii najaashi baa nebiga meherka ka bixiyey dadkii iyada la socdayna waxay ka dhex dooratay Khalid ibn Saciid ay ku tiri adiga iga noqonaya bay ku tiri ma aragtaan weligeyga adiga iga noqonayo adaa dad igu dhow taana markaa bay noqotay ummul muuminiin radiyallahu anha ramlata bint abi sufyaan gabadh qiimo badan bay noqotay madiina ayaa nabiga loogu keenay calayhi salaatu wasalaam daana madiina markay timiday ayuu nabigu dajiyay aabaheed Abu Sufyaan oo markaa gaala oo wali aanan islaamin ayaa magaalada Madiina u yimid inuu nabiga la galo sulx iyo heshiis markay nabiga wada hadleen ee ay sulxigii arrimihii laga wada hadlay ayuu istiri bal inantaadii ramla sii maro sii buuqo daana markaa buu aqalkeedii buu galay gogoshii nabigeenu ku jiifsanaya markuu yidhi ku fadhiisatid gogoshii bay ka hor qaaday baa la yidhi markaa buu sidaa u eego wuxuu ku yidhi aabbo ma firaashka aniga ii qalmin mise anaa firaashka u qalmin buu ku yidhi maxaad iga hoos qaaday markaa bay ku tiri maya aabba firaashkan waa firaashkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku jiibsanayey uma qalantid inaad adigu aad ku fadhiisatid bay ku tidhi waayo adigu nin mushrika oo nijaasa ayaa tahay firaashka nebi maxamed waa firaash daahira bay ku tidhi dalfirso iimaanku waa cajiib waa aabbaheedii dhalay islaamnimada markay ay timaado diinta islaamku waa inaad garataa ayaa la xidhiidhinayn ayaa wax la siinayn ayaa la jeclaan ayaase la jeclaanayn ayaa xidhiidhka loo jaray ayaa xidhiidhka loo dayn waxaasoo dhan diinta islaamkaa ku amraysa alwalaa walbaraa bay culimmadu yidhahdaan alwalaa walbaraa yaase la xidhiidhin ayaase la goyn ramla radiyallahu anha gabar taariikh labay noqotay markii dambe taariikhdeedu cajiib ay tahay marka diintooday la baxsanayeen siday u badbaadiyaan iimaankooga islaamnimadooda Suhayb ar-Rumi radiyallahu anhu ayaa markuu hijroonayay Madiinada al-Munawwara nimankii mushrikiintu dhaxday u galeen markaasay ku soo baxeen nin maalqabeen buu ahaa Suhayb radiyallahu anhu Aba Yahya waxay ku yiraahdeen Suhaybow adigoo sacluuka oo faqiira ayaad magaalada Makka noogu timiday waxa dhaqaale ee maanta haysatana magaalada Makka dhexdeeda ayaad ka samaysay ma waxa doonaysaa dhaqaalihii intood qaadid Makka dhexdeeda aad ka samaysay inaad Madiina la tagtid may dhaqaalaha ma qaadan kartid baa lagu yiri waa ku duleynaa wuxuu yiri waad dilaysaan laakiin ana waan dili buur ana wuxuu ma niga dili ogaada buur dagaalkana qaana buur nin waxaana hay Roomiya leebka sida loo gana ayaan qaanaa haddaad idishaan waad iga tira badan tihiin laakiin ana rag baan galaafan buu ku yiri haddaad dhaqaale oo doonaysaan dhaqaalaha ana ay nisiin buur lacagteedii oo dhan waan nisiin intaan wadana gacantan iniga saari magaalada Makka ee ka soo baxay wixii dhaqaale meel yaalana waa nii tilmaami laakiin dariiqa ay banaya buu ku dariiqaas waayo nabigeeygi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadeedii baa ka daba tagaya iimaankayga iyo diinteyda ayaan ilaalsanayaa iimaankayga iyo diinteyda wax walba aniga igala qiimo badane dariiqa ay banaya buu ku dhahan mare agtooda diinta qiimo leh agtooda maxaa qiimo lahaa iimaanka lacagtu qiimo ma leh
waa hagaag bay yidhaahdeen lacagtii buu gacanta ka saaray waa kana qaata magaalada makana madaxweynaha lacag baa igu aasana ka soo faqday buu halkaana kala soo baxa laakiin wadada ay banay buu ku yiri rasuulkaygii baan u tagay calayhi salaatu wasalaam ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله هجرة السعودان هجرة مؤبدة ما هجرة يرو وقت ير أو كوبان انتي مقنادان أي مقالة مكة كسو نغنيان ماها وهجرة مؤبدة أقل ذي بي كتغيان بيروه بي كتغيان تجارة ذي بي كتغيان قرابة ذي بي كتغيان وحي دورتين إلهي رسول قيسي دورتين وحي وردن بأوسيي وضدي بي أبنيين مركز وصعدي هل ساعة قدهد أيوها نغني يوم القبانة ساعات كدبنا وحون نقضي نين فقير ونقضي سوق فقيرة وقعنتي ساشلين كجرين أيو مقالذي مكة سوق مدينة سوق قليبا ليدين أيا سودوي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومحو نبي كو سودوي ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى بيعك ganacsiga aad ilaahay la gashay waad ka macaashay buu nabigu ka yiri maanta laana ikhtibaar buuha ikhtibaar ilaahay rasuulka oo dhinaca ayaa adduunyadaadii oo dhinaca kala dooro bay ahayd deena ilaahay azza wa jalla wuxuu ku ilhaamiyay saxaabigaas inuu yiraahdo lacagtu qiimo ma leh qaata laakiin nabiyullaahi muhammad baan ka daba tagay faraha iga qaada wadada ii banaya امتحان لأن مركز النبي يقول لي ربح البيع أبا يحيى بايع مشتركة ما أنت إلهي أدي إلهي إن الدحمري وأتكمل عشتي النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا أوشيك النبي قصة العادي وحي با نبي الله أوشيك وحي ماشى قضيته أي كده عايز ومكة ودويد تليفوننا زمن كان هيسنية آلات كان أكون اتصال الناس سريعة وحي أردن بعدوية ده مركبة وجود بيني ما هيسن لكن جبريل بنبي كوسو دقو وجو الرمية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مؤمنين توحى كمدة بإلهي إلهي من نفتي سي حولي سي دقاله سا كويب سنة إلهي رضيه سا وأبا يحيى أيا كمدة بلقيري صهيب الرومي باسو السعودة ودقاله سي كدورتي إلهي الرسول جسنو رالي قليا كدورتي لعقتو أكتو ذا قيمة ماله قبيلكو أكتو ذا قيمة ماله دبلومكو أكتو ذا قيمة ماله أقلدو ذا أكتو ذا قيمة ماله دولكوغو أكتو ذا قيمة ماله أكتو ذا وحا قيمة لإلهي رسول كيسا صلى الله عليه وسلم إنك أنا ما أنت دلني يرد إنه هذي عرودان وحي كو عرب حانين إلهي النبي أفلقاديان الدين تأفلقاديان وملائكة أفلقاديان وميانا دوغين قراء نمن قرآن أخرنا أو حفاظة عيدوا ذي إن ليدوات كو قالوا ذي المنافقين اسكدا دينيو ملائكة إلهي الرسول كو أفكال لقود تاقي يا معشر القراء نمن كي منافقين تيجري أبا در يا صهيب يا بلال بي أركانو مال فرديا ولبا السفر بي هايانو غزوة جهاد بي أسعدين وارقوا الذين قرآن أخرس بدن له باللقو يري مركع عنتاد اللعونينا محاين نقع عن توقوين مركع دقالك الله قالنا محاين نقفوا ليسن أريقا سيكا ورما وأريقا نيمك الصومالي دو اعتراضو هدان علموي عدعن موي عيدان كادايو حقا قلوينكيغا قلبيدكا يداده هدان علموي عدعن موي عيدان كادايو maxay ka dhigan tahay hadalka ninka munaafiqa uu yiri ahdigii nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar al-qurra ururkiin quraan akhriska badan lahow marka dagaal la galayna maxay iniga fulaysan marka cuntada la cunayna maxay iniga cantuuga weyn ereyga inagu aan leenahay isma tagin يا واستقيم
ereyga baan la yidhi may waad gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wax cudurdaara ood sheegan kartaan ma jirta baa ilaahay ku yidhi waad gaalowdeen baa lagu yidhi iimaankiinnii kadib gaalnimaad ku dhacdeen baa lagu yidhi waad gaalowdeen famaa maxaad u malayn markaa ninka ilaah iyo nebiga afka ku taagayana ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno diintu kaftan ma gasho wamaa huwa bilhazli baa ilaahay yidhi wamaa huwa qur-aanku dheeldheel mu galaa dheeldheel ma galo ma aamana bilqur'aani man istaxalla maxaarimahu wixii qur'aanku xarrimay ninka xalaashada ilaahay iyo rasuul iyo qur-aankiisa ma aaminin baa la yidhi qur-aanku muxuu xarrimay qur-aanku beentuu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay gabadhu inay dhar khafiifa intay xidhato magaalada dhex marto qur-aanku uu xarrimay qur-aanku wuxuu xarrimay diinta in lagu dheeldheelo qur-aanku uu xarrimay qur-aanku muxuu xarrimay salaada inay camdan kuu dhaafto qur-aanku uu xarrimay shareecadda islaamku waxay xarrimtay ninka xalaal ka dhigta buu nebigu leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo qur-aankiisa ma aaminin buu yidhi qofkaas ilaahay hanu soo noqonno han toobadkeenno natuub ila allah oo diinteennan islaamka han ku toosnaanno asbaabta inaad diinta ku toosnaato ku dhib yaraynaysana waa labadaa shay bay culimmadu leeyihin aliimaan iimaan dhammaystiran iimaan hadba inta iimaankaagu ziyaaday diintaadu ziyaadi iyo maaragtaane mujtamac wanaagsan maxaa laga wadaa waa bii'adda bulshad wanaagsan ciddaad saaxiib ka dhigatid unbaa diintooda adigana aad qaadana ogow laa tusaaxib ilaa muuminan walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad cid la saaxiibi qofka muuminka la saaxiib buu nebigu leeyahay gabadha muuminadda ha la saaxiibto wiilka muuminka ha la saaxiibo haddii saaxiibkaagu uu yahay mid muumin oo taqwo leh xagga khayrku kuu jiidiyo ogow walaa yaakul طacaamaka ilaa taqiyun baa nebigu yidhi haddaad wax bixinaysidna waxaa awlaaya inaad siisa ka ilaahay ka baqaya haddaad sadaqad bixinaysid haddaad sakada bixinaysid xataa qaraabadaada haddaad wax siinaysid kuwooga alla ka cabsiga la xidhiidhiyo horta wax sii limaada kan ilaahay ka baqaya waxaad siisaa ilaahay daacaddiisu u adeegsan oo wanaaggu u adeegsan haddii aad siisa laakiin kan macaasida iyo qafladda ku jira waxaad siisa ilaahay cisyaankiisu u adeegsan marka mufsidka ha taageerina saalixa ayaa la taageeraa mar walba saalix iyo faasid mufsid iyo muslix dadku waa afartaa qaybood mid waa saalix waa mid isagu wanaagsan keliya bas naftiisa u wanaajiyey dadka kalena waxba kama gelin saalix baa la yidhaha waa saalixun linafsihi waa qofka keligii naftiisa wanaagsan wanaajiyey weeyaan midna waa muslix weeyaan naftiisana uu hagaajiyo uu toosiyey dadkana wuu hagaajinayaayo wuxuu leeyahay oo khayrka kaale ku soo xidhma buu leeyahay madaaristuu furayaa ummaddii buu islaaxinayaa qur-aankii buu barayaa gabdhihii buu asturka kala hadlayaa sunnadii nebigu ummadda ugu yeedhayaa masaajidda tacmiirka ugu yeedhayaa waa muslix weeyaan kaa muslixu intuu adduunyada joogana ilaahay waxa uu leeyahay halaaga soo dadajin mayno وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون با إلهي يدي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم إلهي ربك ماها كقرية ظلم كهلاقايا أيضو إهلكيقو أيهين كودتك وناقوك كشقاينايا دتك قرية دا كنول حتى هدي شركي أي كجران هدي فساد أي كجران هدي ظلم أي كجران لكن دد مصلحين وناق أمد لدح وريقيا أي دح جوغان dadka islaaxinaysa ay ku dhex jirto ilaahay waxa uu leeyahay halaagooga soo dadajin mayno halaagi mayno amma haddii dadku ay yidhahdaan waan wanaagsannahay annagu dadka xunna waxba nagama gelin kaa saalixa halaaga soo socda celini maayo macal isagana waa la halaagi markaas saalix iyo muslix faasid iyo mufsid faasidkuna waa ka naftiisa uu fasaadiyey mufsidkuna waa kan ummadda fasaadka la dhex socda balaayada qaylyasa iyo
meela ayuu dhalinyarada ku kulminaya dhalinyaradii gabdhaha wiilashu meelaha ku kulmaan buu sameynaya mufsid alaat alfasad meel walba dhigaya marka afarta qole adduunyada ku nool saalix muslix faasid iyo mufsid marka mufsid muslix waa inaad noqotaa muslix dadku inay noo hagaagaan waa in laga shaqeeyo hagaaga ummadda lidaalika madarasadaha jazaahum allahu khayr macallinka noo yeedhay allah ka jazaaysiiye waa asbaabta mujtamaca islaaxinaysa waxaa ka mid a madaarista qur-aanka ka mid ah bal waa ka kow qur-aanku qofku markuu qur-aanka barto qur-aanku qofka iimaanku u biirinayaa qur-aanku qofka xishoodku barayaa qur-aanku qofka akhlaaqdiisu u dhisayaa qur-aan haddii madaarista baa la yidhi haddii man fataxa madarasatan aqfala sijnan bay dhahdaan culummadu qofka madarasad qur-aan lagu dhiganaya meel ka furay waxay ka dhigan tahay jeel buu ninka ummadda ka xidhay laana jeelashu meel lagu soo islaaxa maaha meesha ummadda ku islaaxaysa waa madarasadii masaajidda weeyaan in ummaddu masaajidda ay soo gashaana dacwadda u sababa in dadku ay madaarista ku soo xidhmaanna macallimiinta ayaa u sababa daaciguna dadku masaajidda ku soo shubaya sida ay qasabadu biyaha ay barkada ugu soo shubayso ayuu daaciguna maaragtaanay masaajidda ummadda ku soo camiraya macallimkuna dadka ayuu ku soo xidhaya maaragtaanay qur-aanka marka qur-aanka ummaddu islaaxiya haddaad aragto ummad qur'aanka danaynaysa qur'aanka baranaysa qur'aanka jecel madaaristu u badanayso dadkaas waxay ka dhigan tahay dadnimadoodii baa soo noqonaysa fajazaahum allahu khayr macallimiintana waxaan leenahay ha ka daalina dhigidda qur'aanka aad dhigaysaan ha ka daalina laanna ilaahay baa inaga abaalmarin إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قرآن كان إلهي عز بكسينا يا ضد إلهي عز بكسينا كرب وقاذا يا ضدنا إلهي إسلا كتاب كان هوس إلهي أدقى يا ضد قرآن كان برا برتا ku dhaqma ummadda ku xakumana ka shaqeeya quraanka sidoo kor u noqon lahaa quraanku kor buu u qaadayaa dadka quraankan intay bartaan gadaal iska dhigay wax kale shariicad wax kale dastuur iyo nidaam ka dhigtana quraanka ayaa la harayo naartu quraanku ku tuuraya القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعل أمامه قاده إلى الجنة ومن جعل خلف ظهره ساقه إلى النار نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها قرآنك وشافع ويان وإرقي سنة ولا أقبل يا وماحل مصدق والضوء ويان عد الضوضنا دودي سوى لا أقبل ولا الرميسن نبي يري من جعل أمامه قاده إلى الجنة قفك قرآنك هرتي سكيلا قرآنك الجنة حق u qaadaya qofka quraanka xaga dambe iska dhigana quraanku naartu ku tuuraabu nabigu kaleey salaatu wasalaam quraanka xaga hore iska dhig macnihiigu waa maxay imaam ka dhiga quraanka had baranayso eed ku dhaqmayso eed umad ku dhaqayso eed maaragtaan ku tarbiyadeynaysid waa inuu hada quraan laana quraanku waa shariicad dhamaystiran ilaahay baa noo soo dajiyay barka ilaahay diinta hay nagu sugo آمين هذا لا تكونوا إن معبو نبي قولي أن تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا وإن ظلموا وإن أساءوا ظلمنا هذا المعني سوها حديث dadka ku yiraahda anu hebelow ma caagana hay har noqon buu nabi guuri yaani qof walba iska raaca qofka cidii u timaadaba ay kaxaysato har noqon وكي ودتك يرادا بو نبي ولي دتو هدي وناغسنادان وناغسنانay haday xumaadaan ma aragtaan iyaga ma kamidnahay ha oran buu nabi guri sida ha noqonina kuwa sida oranaya walaakin wadnu anfusakum ba nabi guri naftiina dariiqa mustaqimka ku toosiya buu nabi guri dadku haday wanaagsanaadaan la wanaagsanaada haday dadku xumaadaan buu nabi guri ha xumaanina buu rasuulku yiri la takunu معاقنا أنه هبل بالنجرة دت كان لا صعنا عالم كان لا صعنا بكورنا يا قارقود والعالم كعقوس سعودات لا صعود شوخ عالم كان لا صعوداي عالم كعقوس سعودات
caalamku haawiyuu ku socdaa ha raacin ilaahay iyo rasuulkiisa iyo culimmadu warkay kuu sheegayaan raac caalamka waxba kaama gelin caalamku madaxu ku socdaa ilaahay iyo rasuulku waxay ku leeyihiin mijahaaga ku soo soco waad noo imanayeen afaman yamshi mukibban calaa wajhihi ahadaa amman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim lugahaaga ku soo soco lagu leeyo kaalay caalamkan la socdaa haddaad tidhaahda waxaad ka dhigan tahay indhali iyo dhegeli ayaan dadka u raacayaa caalamku maanta ma indhaqabee ha ku dayan waa la indhabeelay way dhagabeeleen dadka adduunyada ku nool maanta meel kale u socdaan raacin cid walba ha raacin dhangaagaale ha noqon cid walba iska raaca ilaahay rasuulkiisa kitaabkiisa sunnada nabi maxamed raac warka culimmadu ay kugu yeedhayaan baaqa culimmada ajiib waad liibaani adduunkan iyo aakhire kuwa ilaahay nebiga raacay haynaga yeelo insha allah dhahada maasha allah ku dadaala khayr baa inoo muuqda khayr baa ifaya zaman wanaagsan baad moodaa inuu zamankan yahay runtii sida ummaddu khayrka ugu soo jeesatay innakana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu khaatimada inoo hagaajiyo waxaa khayran sheegaynana ilaahay inuu ka yeelo ikhlaas oo maalinka qiyaamahana ilaahay naga abaalmariyo diintana kuwa ku sugnaada ee ku khaatimaysta allah inaga dhigo hada wabillaahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina muhammad